السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan ka hadli doonaa gabar kaarka aabaheed isticmaashay asagoo ogeen kaar bangigiisa ay isticmaashay asagoo ogeen daawasho wacan. ninkan waxaa la yiraahdaa Steve wuxuu ku nool yahay dalka Ingiriiska wuxuu ka soo jeedaa dalka Ingiriiska gabadhiisa ayaa isticmaasho telefoonkiisa mar walba aabo telefoonkaada ii dhiib oo ay ka qaadataa ciyaar ay ku ciyaartaa sida aad ogtihiin ciyaaraha qaar waa free Play Store-ka aad galee ciyaarta aad rabtid ayaad soo degsan kartaa kadib ciyaartii ayaad ciyaari kartaa oo free ah balse waxaa jiro ciyaaraha qaar waxay ka rabaan lacag ciyaartu waa ciyaari kartaa free way laakiin haddii aad dhimato miya sida landhuuga oo kale shilinka haddii aad rabtid waa inaad lacag bixisaa waa inaad kaarkaada meesha ku xirtaa aad gadataa shilinka ama loofka iyo waxyaabahaas waa inaad gadataa waa inaad lacag ku gadataa waxaan ka wadaa waxyaabaha specialka ah oo gameka ku jiro ama ciyaarta ku jiro gabadhan 11 sano jirka ah waxay dhahday ma ogeen waxayna ciyaaraysay ciyaar la yiraahdo Roblox ciyaartii ay ciyaaray mar walba shilin ama waxyaabo oo special ah ay u baahanee waxay ku dhufanay qaybta gadashada ciyaartii way dhamaanay ama waxyaabihii specialka ayaa ka dhamaanayo kadib waxa u soo baxaayo gado ayadana si ay sheegtay waxay dhahday ma ogeen meel ayaa ii soo baxaysay ku qoran taabo waan taabanay kadib ciyaartii ayaa ii soconaysay mid kale aabaheed gabadhan markuu si fiican u wareystay waxay dhahday waxaan u maleynay in aan ku gadanay lacag oo fake ah ama lacagta oo gameka ah in aan ku gadanay macnaha ma u maleynaynin inay tahay lacag oo run ah oo kaarkaadi laga jaraayo ninkan oo la yiraahdo Steve bisha la soo dhaafay ayuu online ahaan u furay bangigiisa kadib wuxuu arkay 4500 pound ka go'day bangigiisa dabcan lacagta hal mar ma go'in hal mar hawada kama bixin balse hal dollar ilaa ay ka gaarto 4500 Steve wuxuu dhahay marka hore waxaan u maleeyay in oo bangigayga la dhacay shirkadda bangiga ayuu wacay wuxuu dhahay kaarkayga xira waa la dhacay balse shirkadda waxay dhaheen kaarkaadi lama dhicin adiga ayaa wax ku gadatay ama qof kale ayaa wax ku gatay game la yiraahdo Roblox ayaa wax ku bixisay ninkii markaas uu fahmay gabadhiisa ayuu u laabtay gabadhiisa ayuu weydiiyay gabadhiisa waxay dhahday waxaan ku gatay lacagta oo loogu talgalay gameka macnaha gabadhan waxay dhahday ma ogi waxaan ku gatay lacagta loogu talgalay gameka lacagta ku jirta gameka kaarkaada wax kama baxsanin dadka qaar waxay dhaheen gabadha wax walba way ogtahay kas ay u yeeshay bal marka waxay iska dhigaysaa inay waxba ogeen ninkan oo la yiraahdo Steve waxa laga wareystay barnaamij oo la yiraahdo The Jeremy Vine Show wuxuu dhahay arintan ani ma ogeen bangigayna haddii aan furi lahayn online ahaan haddii aan u furi lahayn ma ogaan lahayn lacagta way iska socon lahayd marka ninkan iyo dadka barnaamijka ka shaqeeyo waxay waceen shirkadda Roblox ama shirkadda oo ciyaartan soo saartay arintii ay u sheegeen shirkaddii waxay dhahday lacagtaadi waan ku soo celinaynaa waan ognahay qalad ayaa dhacay tookada labaad ka fiirso dhibka jiro ayaa waxa ah lacagtiisa marka loo soo celiyay maalimo kadib 1000 pound ayaa haddana laga jartay ninkii wuu yaabay haddana barnaamijkii ayuu la xiriiray wuxuu dhahay caawiye haddana arintaas ayaa dhacday arintii ayaa la daba galay waxaa la ogaaday kunka inay ku jirtay waiting macnaha gabadha way taabatay way gadatay mar hore ay gadatay balse waxay ku jirtay sugitaan ma la mooga af Soomaali waiting ay ku jirtay bangiga ayaa waxa ka socday processor bangiga ayaa hool ku socotay hooshii markay dhamaatay 1000 pound ayaa la jartay ugu dambeyn ninkan lacagtiisa waa loo soo celiyay 1000 kalena waa loo soo celiyay mid kale shirkadda ciyaaraha waxay dhahday hal iska ilaaliyo arimahan oo kale caruurtaadi haddii aad telefoonka u dhiibaysid password ku xir macnaha telefoonka u dhiib ha ku ciyaaraan balse ay gelin meelaha kale password ku xir khaasatan applicationada ama barnaamijyada loogu talgalay bangiyada intaas ayaa idin soo bandhigay waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ama u shargaray marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam